Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Aflah Academy. Dear learners, welcome to our normal class here. Today we are going to learn basic English sentences because still waxaan ku guda jirnaa casharadii beginnerka, yani waxaan ka soo dhamaanay alphabetics-kii, sidoo kale waxaan ka soo dhamaanay order of alphabetics, waxaa kaloo soo marnay demonstrative key. Then maantada waxaan rabnaa inaan barano wax loo yaqaano basic English sentences oo jumladaha asaasiga ah oo Ingiriisiga rabnaa inaan barano insha Allah. Qofka markuu yahay qof bilow waxaa la rabaa inuu ka soo bilaabo from the scratch to top si uu u noqdo qof runtii dhisan. Marka leenahay basic English sentences waxaa la qofka inuu garto. Marka we are going to grow step by step in order to build our strength, and then I wish you to subscribe the channel inshallah. So here are basic English sentences. Can I come in? Yes. Can I come in? Masogeli kara. You see? Masogeli kara. Yes. For example, when I am saying, can I come in? Marka leeyahay oo ana leeyahay masogeli kara. It means this person who jooga banaanka. Then at that time wuxuu dhihi karaa marka can I come in? Masogeli kara. Because this also we can say polite language. We can also use what? Polite language. Polite language ayaa la yiraahdaa. Yes, polite language waa luqadda al-cadaab. يعني لغة العادات يعني قفك مركو آداب وليه وحكو هذا لغة آدات رنتو قرحبان عيوكو هذا. So هذا نحوليه كنا can I sit down? You see? Can I sit down? مفرسن كرا يعني for example this person وصو قال قلت يصو قال then قلت مركو صو قال focus mutaynana, he must to request now in order to sit down because qofka markuu martida yahay oo ku imaado soo u soo socdo qolka ma soo galayo mana fariisana hadan. He just request you. The third one that we are going to learn tan saddeed waxa waayo sit down here. Waxaa weeye halkan fariiso. Sit down here waxaa weeye halkan fariiso. Go outside. Banaanka bax. Go outside. Banaanka bax. 5. Come here, halkan imo. Come here, halkan imo. So these are the short sentences that we wanted to learn today. So I wish you to subscribe this channel.